taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saraar Gaashaanle Axmed Daahir oo weheliyo duqa degmada Caynaba Axmed Qani Cabdi Xaaji Yuusuf ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay saldhig boolis oo cusub oo laga hirgelinayo magaalada Wadamagoo oo ka tirsan gobolka Saraar. Dhagax dhiga dhismahan cusub ee lagu kordhinayo saldhigga booliska magaalada Wadamagoo ayaa waxaa hadallo kala duwan ka soo jeediyay xildhibaan Mustafa Siiri oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka laga soo doorto magaalada Wadamagoo, xogayaha dowladda hoose degmada Caynaba Umar Maxamuud Muuse iyo mas'uuliyiin ku hadlaysay afka guddiga dhismaha saldhiggaasi kuwaas oo tilmaamay in deegaankaasi Wadamagoo aan hore u lahayn saldhig boolis balse dadka lagu xiri jiray geed hoostii iyagoo qorbajooga iyo bulshaweynta Soomaaliland ka codsaday inay qayb ka qaataan dib u dhiska saldhigga booliska ee magaalada Wadamagoo. hawshan waxa keentay baahi sidaa daraadeed meel allaale meel lagu xiro ama inta arinta la isugu imanayo ee odayaashu dhameynayaan abaar yar lagu hayo markii aanu weynay geed hoostii ay noqotay qofkii silsilad lagu xiray sidii qof waalan oo kale ayaan waxaan isla garan hadaan deegaanka nahay bal hawsha inaanu dhibaatadeed markii soo gaadhay inaanu wax ka qabanno oo dhisno rug boolis meel bileysku seexdo iyo meel jeel ah oo qofka lagu hayn karo waa arkaysaan oo way socotaa sibirkii iyo dhagaxii iyo jiingadii iyo qorigii wax kasta wixii aanu ka dhaqaajinay aanu deegaan ka soo ururinay way dul yaaliin waxaanu codsanaynaa in arinta cid kasta oo danaynaysa ay ka qaadato qaybtii maayirka magaalada Caynaba Axmed Qani Cabdi Xaaji Yuusuf gudoomiyaha ururka haweenka qaranka ee gobolka Saraar Amina Aadan Nuur iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saraar ayaa iyaguna soo dhaweeyay dhismaha saldhigga booliska ee laga dhisayo magaalada Wadamagoo iyagoo tilmaamay wax wada qabsiga iyo iskaashiga bulshada dhexdeedu uu yahay ka ugu muhiimsan ee lagu gaari karo horumar waara. midowga damayntiina maayirka magaalada Caynaba iyo ururka haweenka qaranka ee gobolka Saraar ay munaasabadaasi kaga dhawaaqeen qaaraanka ay kaga qayb qaadanayaan dib u dhiska saldhigga booliska ee magaalada Wadamagoo. waxaan aad u soo dhaweynayaa mashruucan lagu dhagax dhigayo qaybtiisii labaad rugtii booliska ee dadka maxaladahay lagu hagaajin lahaa runtii anagu aad baan u soo dhaweynaynaa hawsha kaga qayb galinaa maadaama aanu aad ugu faraxsanahay hawshan tii aad anaga xaqiiqada uga cadleedahay 10 midho sibira hadii ilaahay idhaaho birrimo isaad baarayeen maanta Wadamagoo waxay samaysay sunnad aad u wanaagsan sunnaha wanaagsanna waa wax lagu dayda marka Wadamagoo waxay tustay maanta gobolka Saraar dadweynaha ku dhaqan iyo magaalooyinkooda in wax la wada qab inay wax la qabsan karo annagu waxaanu ku talagalnay inaanu hawsha ilaahay yeelo $1 lacag gaaraysa $1 baa yaal inta ka farxad bay noo tahay bishaan gaar ahaan aniga farxad bay tahay waa intii aan joogo waxa weeyaan waa saldhiggii labaad ee la bilaabo dadweynaha reer Wadamagoo iyo waxgaradkooda iyo cuqaashoodana waan u hambalyeynaya jaamac boodacade